السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaad daawadayaal waa mar kale iyo walaalkiin Maxamed Cabdiraxmaan. qisada aynu maanta ka hadli doono waa qiso dhex martay laba nebi oo ka mida nebiyadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waa qisadii dhex martay nebi Daa'uud iyo wiilkiisa nebi Sulaymaan calayhimussalaam. waxay qisadani ku soo aroortay qur'aanka. maxay kala xukumayeen nebi Daa'uud iyo nebi Sulaymaan? ugu dambayn waxaa saxnaa xukunkii nebi Daa'uud mise xukunkii nebi Sulaymaan? su'aalaha iyo kuwo kaleba waxaynu ugu jawaabi doonaa muuqaalka dhexdiisa. ila socod wanaagsan. haddii aad ka heshay fiidiyowga fadlan like saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. asxaabtaadana u sheergaray. taasi waxay inoo tahay dhiirigelin aad nagu dhiirigelinayso in aynu sii wadno muuqaalada noocan oo kale ah. nebi Daa'uud iyo nebi Sulaymaan labaduba waxay ahaayeen laba nebi oo ka mida nebiyadii Ilaahay uu soo diray reer bani Israa'iil. nebi Daa'uud wuxuu ahaa nebi uu Ilaahay u safiray birta inuu ka sameeyo qalab kala duwan oo faa'iido u leh dadka. nebi Sulaymaanna wuxuu ahaa nebi uu Ilaahay u safiray makhluuqaad kala duwan. waxaana ka mid ahaa makhluuqaadkii uu Ilaahay u safiray jinka, dabaysha iyo xayawaanaadka. waxaa jiri jiray xilligii nebi Daa'uud iyo nebi Sulaymaan nin lahaa beer aad iyo aad u weyn. beertaasi waxay gaartay xilligii la goosan lahaa. ninka beerta iska lahaana aad iyo aad buu ugu tacbay oo wuxuu rabay inuu goosto beertiisa. balse xilli ay habeen tahay waxaa beertii weyneed soo galay ari aad iyo aad u badan. waxayna cuneen wixii khayraad ahaa ee beerta soo saartay. subaxii waxaa isqabsaday ninkii beerta lahaa iyo ninkii ariga lahaa. muran badan kadib waxay go'aansadeen inay u xukun tagaan nebi Daa'uud calayhisalaam si uu u kala saaro. markay u yimaadeen nebi Daa'uud calayhisalaam ayna u sheegeen waxay isku hayeen, nebi Daa'uud markii uu arrintii u fiirsaday waxaa u muuqatay ninka ariga iska leh inuu gardaran yahay. wuxuuna xukumay ninkii ariga lahaa inuu arigiisa siiyo ninkii beerta lahaa. labadii ninna way ku qanceen xukunkii nebi Daa'uud calayhisalaam. waxay si kedis ah la kulmeen nebi Sulaymaan calayhisalaam. wuxuuna ku yidhi nebi Sulaymaan wuxuu idinku xukumay nebi Daa'uud. ninkii ariga lahaa ayaa wuxuu yidhi wuxuu igu xukumay inaa arigayga siiyo ninkan beerta iska leh si uu khasaarihiisa ugu soo kabto. balse nebi Sulaymaan calayhisalaam wuxuu ku xukumay xukun ka saxsan xukunkii nebi Daa'uud calayhisalaam oo wuxuu xukumay in ninkii beeralayda ahaa la siiyo ariga si uu ugu faa'iidaysto araggiisa iyo caanaha ariga. wuxuuna ku xukumay ninkii arilayda ahaa inuu beerta mar kala beero ayna kala beddeshtaan markii ay beerta sidii hore oo kale ku soo noqoto. wuxuuna Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi qur'aanka waxaynu fahansiinay nebi Sulaymaan. waxayna qisadani ku soo aroortay suuratulambiyaa aayadda 78. allaahu aclam. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين